uga dhigayaa airbortkii waxaan ku tala waayaha dambe waxaan tuhum waxaa jira in dadii warqado feega soo qaatay maxaa caddaynaya oo tuhumkaas annaga nagu dhaliyay qofkaana waa soo galay warqaduu wataa 24 saac ka hor maantuu yimid galabtii u jiray wuu xanuunsaday waalidkiis habuu siiyey waa ku dhacay qoyska dhammaa ku dhacay waana dad badan asagii waa la qaaday isbitaal la geeyey waa dhintay ama waa badbaaday waxaan rabaa inaan idiin sheego warqado feegaha la soo qaadanaya arrinkaasna waa arrin hor yaalla arrinkaas marka wasaaradda caafimaadka waxaan dhihi lahaa meelaha laga soo gelayo waa in qof walba oo wata soo gala oo Soomaali ama nin kasta ha noqdee waa in horta baaritaan lagu sameeyo baaritaankaasna asaga lacagtiisa la baxaya waa baaritaan asuu lacagtiisa la baxaya muugaan inta la qaato degdeg kolba imaan doonta dadka negative ka noqday oo laga waayay waa iska jirina incubation period inuu ku jiro iyo in kale aan iska ogaanaynaa waxaan sameynaynaa dadkaas waa in wasaaraddu ay hotel la xiriirto hotel la geeyo asuu lacagtiisa ka baxsho midka la baaray ee laga helay 14 beri oo sano noqon doona kharashkiisana asaga qaba walaalayaalow waa la ogyahay hal la ogaado Soomaaliya soo aadideedu hadda kadib waxaa laga yaabaa in ay arrintaas ay timaado arrinkaas laga fakaro yaanan la isku soo la soo ururdino dadka gobolkiisa aan tuumayno inay warqado meelaha ka soo qaateen beena oo aan cadayn oo aan la hubin soo qaata anuu ma cadeyn karo laakiin wadankeena inaan waardiyeysano oo wadankeena xakameysano dadka ayaan u baahanaa